Assalaamu calaykum kusoo dhawaaw channelka oo mahad biyuhu waxay ka mid yihiin nimcooyinka Ilaahay noogu manaystay kuwaasoo bini'aadamkuna uu aad iyo aad u jecel yahay oo inta badan aan u tagnaa dalxiis amase waqti inaan ku soo qaadano oo ku soo damashaadno laakiin biyaha hoosteeda waxa ku nool bahalla inta badan bini'aadamka halis ku ah oo nafta bini'aadamka khatar geliya kuwaasoo ah sida yaxaasyada libaax-badeedyada iyo malaayga dhowrka kala duwan oo biyaha hoosteeda ku nool. Bahalka maanta aan soo qaadan doono ayaa ah yaxaaska. Yaxaasku waa bahal inta badan biyaha webiyada ku nool wuxuuna leeyahay ilka aad iyo aad u tiro badan. Ilkihiisan tirada badan ayaa ah kuwo u taxan sida minshaarta oo halis badan. Haddaba wixii afka yaxaaska gala wuxuu ku kala goon karaa si fudud. waxaana la dhahaa dad qaar ah ayaa afka yaxaaska yaqaan amase xanaaneysta. Dadka intooda badan ee yaxaaska xanaaneysta ayaa ah kuwo ku suubiya dhowlatus laakiin khasaaraha ama halista ka soo gaarta ayaa mid aad iyo aad u weyn ah. waxaa jira dhowr bahal oo bini'aadamku u xanaaneysta laakiin yaxaasku waa bahal aad iyo aad u halis badan oo haddana aanan asxaan garanaynin. ninkan saan u jeedna wuxuu isku dayaa inuu cunto siiyo laakiin asagoo u jeedin oo gadaal u socda ayay lugta u baxday yaxaaskiina wax yar ayuu cuni karay. ninkan ayaa wuxuu la sameynayaa yaxaaska dhowlatus meel ay dad badan joogaan laakiin waxaa ku dhici doona shay lama filaan ah. saan hore u sheegnay yaxaaska ilkihiisu waa ilka aad iyo aad halis u badan oo haddii qayb jirka ah ka mida ay u gasha si fudud ku kala goonaya. saasay tahay wuxuuna ku dagaalamaa oo uu kugu dili karaa xagga dambe ama seentiisa. ninkan dhowlatuska la sameynayay dhowr mar ayuu madaxa la galay gacanta la galay laakiin kama dambeystii wuxuu ka gooyay gacanta waxaana loo diray isbitaalka. asxaabta qaaliga waxaan soo gaaray gabagabadii fiidiyogeena maanta waana kuu mahadcelinaa maadaama aad ilaa halka ila soo socotay. waxaana kaa codsanaa inaad sii sheergaraysid fiidiyogan kuna soo biirtid channelkayga haddaadan horey ugu soo biirin. wixii fikrad ana hoos xagga commentiga igu soo reeb.